بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaad ku soo dhawaataan casharadii taxanaha maadada fiisikiska oo alaaba aan ugu faa'iideeyo ardayda dugsiga sare dhigta maanta insha Allah taala waxaan halkan ku soo duubi doonaa ama aan ku soo bandhigi doonaa ama aan ka shaqeyn doonaa imtixaankii ay wasaaraddu ay dhawaan ay qaaday sanadka 2020 ayaan halkan insha Allah taala aan ku kala dhigdhigi doonaa isla socod wanaagsan imtixaanku wuxuu ka koobnaa laba qaybood part 1 wuxuu ahaa multiple choices am circle oo kaasoo micnaheedu uu yahay dooro jawaabta saxda ah ama goobigeli qaybta labaad ee imtixaanku wuxuu ka koobnaa structured questions oo taasoo micnaheedu uu yahay su'aalo toos ama direct ardaygu uu ka shaqeynayo maanta marka haduu eebakaraal noqdo waxaan duubi doonaa qaybta koowaad oo multiple choice questions oo ka koobnaa 20 su'aalood kaasoo u dhiganta 40 dhibcood qayb kamid ah imtixaanka koor intaanan guda galin su'aalaha insha Allah taala waxaan ka codsanayaa inaad subscribe aad saarto channelka like na aad saarto aadna u share gareyso ardayda si ay ugu faa'iideystaan kuwa gali doona imtixaanka iyo kuwa hore u soo galay si faa'iido ugu noqoto ardayda imtixaanka ayaan guda galaynaa insha Allah taala part 1 kan ku hormari doonaa oo ah qaybihii goobigilida su'aasha koowaad waxay u dhaceysay sida tan which of the following kuwa soo socda keeba ah is an example of electromagnetic wave tusaale u ah electromagnetic waveska saad wad ogtiin electromagnetic waveska waxaa la isku yiraahdaa 7 waxaa kamid ah gamma x-ray ultraviolet visible light infrared microwaves iyo radio waves todobadaasi waxaa loo yaqaanaa electromagnetic waves marka kuwa soo socda keeba ah marka example u ah tusaale u ah electromagnetic waves waxaa lagu sii sound wave 2 waxaa lagu sii string wave 3 waxaa lagu sii water wave 4 waxaa lagu siiyay radio waves jawaabta saxda marka waxay noqonaysaa waa radio waves jawaabta saxda waxay noqonaysaa radio waves asaga ayaa tusaale u ah electromagnetic waveska todobada electromagnetic waveska waxaa tusaale u ah radio waves jawaabta saxda marka waxay noqonaysaa D oo u dhiganta radio waves su'aasha labaad imtixaanku waxay u qorneed ama waxay ahayd when marka the vibrations grid of the particle medium ka qaada wave-ka r uu yahay perpendicular mid ku qotoma ama normal ku ah ama up and down ula socda the direction jihada of wave motion ee u socoto hirka marka types of waves anaga laba u soo qaadanay hada xasuustiin waxay ahaayeen mechanical waves electromagnetic wave motion wuxuu ahaa transfer waves iyo longitudinal waves marka mid wuxuu ahaa particle ka wave ka qaadaya iyo direction ka wave ku socda waxay isku ahaayeen perpendicular midna wuxuu ahaa particle ka wave ka qaadaya iyo direction ka wave ku socda waxay ahaayeen parallel hadaba kuwa soo socda keeba ah particle ka wave ka iyo direction ka wave ku socda keeba ah perpendicular isku ah jawaab saxda waxay noqonaysaa waa D oo u dhiganta transfer waves marka waxaan ku qeexayna qeexitaanka wuxuu ahaa transfer waves waxay ahaayeen are waves that the particles of the wave are perpendicular to the direction of wave motion direction jihada wave ku socdo iyo particle ka wave ka qaadaya waxay ahaayeen kuwa perpendicular ah oo isku qatama oo up and down hadba wave ku sameeya su'aasha saddexaad waxay ahayd ama waxay u dhaceysay the speed of sound xawaaraha codka in air habadu at a temperature marka heerkulku uu yahay -40 degrees centigrade -40 degrees centigrade haduu yahay temperature heerkulka habada muxuu noqonayaa speed of sound su'aashan oo kale marka waxay u baahan tahay ardayga inuu ka soo shaqeeyo uu jawaabta u soo baxdo uu halkan la imaado afartan midkay jawaabta u soo baxday uu goobo geliyo ma ahan inaad isla markii aad goobada aad geliso su'aashan waxay u baahan tahay inaad ka soo shaqeyso marka waxaan la diray speed of sound kaasoo micnaheedu uu yahay velocity ana laga rabaa waxaan la siiyay maadaama velocity ana laga rabo waxaan la siiyay temperature oo ah -40 degrees centigrade marka jawaab saxda maxay noqonaysaa marka intaadan jawaabta ku degdegin waxaan u baahanahay inaan soo shaqeyno velocity speed of sound-iga waxaa lagu helayaa chapterkii sound waves hada xasuustiin waxaa lagu helaa 330 meter per second oo constant speed oo lagu daray 0.6
oo u dhiganta halkii temperature uu ku ziyaadayay eber dhibic 6 meter per second oo lagu dhuftay temperature guud ahaan marka halkaan aan ku soo qoray qaacidada waxa isticmaalaysaa qaacidadan ay isticmaalaysaa waxa leedahay 330 meter per second waxa lagu darayaa eber dhibic 6 meter per second oo lagu dhuftay temperature-ka marka 330 aad soo qaadato balaas aad leedahay eber dhibic 6 oo constant ah oo aan isbedelaynin ayaad waxaad ku dhufanaysaa -40 markaad calculator ama scientific aad geliso answerka u dambeeya wuxuu noqonayaa 306 meter per second taasoo micnaheedu uu yahay jawaabta saxda ah marka waxay noqonaysaa waa d oo u dhiganta 306 oo meter per second su'aasha afaraad ee imtixaanka waxay u dhaceysay the forward and backward motion socod sameeya hore iyo gadaal of an object walaxda from marka laga soo bilaabo its mean position bar cayiman ama barta nagaanshaha markuu ka soo bilaawdo ayaa waxaa loo yaqaanaa a waxaa lagu siiyey periodic motion b waxaa lagu siiyey circular motion c waxaa lagu siiyey oscillatory motion d waxaa lagu siiyey linear motion jawaabta saxda marka waxay noqonaysaa waa c oo micnaheedu uu yahay oscillatory motion ayay jawaabta noqonaysaa sidee ku noqon markii waxay ku noqotay oscillator motion marka la qeexaayo chapterka oscillator motionka wuxuu ahaa oscillator motion waxa la waa to and fro of motion of an object from its mean position waxa leedahay the forward and backward walax walbo oo sameeyo socod oo hore iyo gadaal ah kaasoo ku soo laabta mean position ama ka soo bilaawda mean position ayaa waxa loo yaqaanaa oscillatory motion marka jawaabta saxda waxay noqonaysaa c su'aasha afaraad ee imtixaanka ay wasaaradda ay galeen ardaydii sanadkan soo la soo dhaafay 2021 waxay u dhaceysay school bus baabuur bus school ayaa emits wuxuu soo daayaa sound cod ama jabaq of wavelengths hirbaaciis uu yahay eber dhibic 5 oo meter per second and the frequency wuxuuna leeyahay rakaad oo ah 100 hertz then adaba its velocity speed ama xawaaraha codkaas wuxuu noqonayaa a 20 meter per second b 50 meter per second c 200 meter per second iyo d oo ah eber dhibic 5 meter per second jawaabta saxda marka maxay noqonaysaa jawaabta saxda waxay noqonaysaa waa b taasoo u dhiganta 50 meter per second ayay noqonaysaa sidee ku soo baxday marka waxay ku soo baxday waa inuu ardayga uu warqadaas markaas uu haysto uu ku shaqeysanayo uu ku soo shaqeeyo waxay ku soo baxday velocity waxaa lagu helaa chapterka wave motion hadaa xasuustiin waxaa lagu helaa wavelengths hirbaaca oo lagu dhuftay frequency-ga marka anaga wavelengthska waxaana la siiyey sidaad aad soo aragteenba eber dhibic 5 meter iyo frequency oo ah 100 hertz labadooda marka la isku dhufto waxaa soo baxayso 50 ama 50 meter per second marka jawaabta saxda waxay noqonaysaa waa b oo u dhiganta 50 meter per second marka ardayga waa inuu ka soo shaqeeyaa su'aalahan oo kale wuxuu u baahan yahay inaad ka soo shaqeyso su'aasha xigta waxay tahay number 6 the wavelength hirbaaca of fundamental harmonic aasaaska codka waa dhererkiisa waa 1.5 meter waa 1.5 meter long aduu yahay open pipe oo tuumbo furan markay tahay chapter sound waves marka waxa ku soo baranay wax loo yaqaan fundamental tones and wax loo yaqaano first harmonic tone and fundamental harmonic tone wuxuu ahaa wavelengthska waxa lagu helayay waa laba laabka lengthska waa lengthska dhinacana lengthskan iyo lengthskan oo laba mar la isku dhuftay ayaa waxa lagu helaa wavelengthska marka waxaan sameynaynaa marka waxaan la siiyay 1.5 oo hal lengths hal dhinacana la siiyay marka 1.5 ayaa waxaan ku dhufanaynaa laba mar isku dhufanaynaa jawaab saxda marka waxay noqonaysaa waa c oo micnaheedu uu yahay 3 oo meter ayuu noqonayaa wavelengthska waa 2 labo ah waxaad ku dhufanaysaa 1.5 meter maadaama uu yahay first harmonic and fundamental harmonic maadaama uu yahay waxay noqonaysaa labo lagu dhuftay wavelengths ayaad ku helaysaa waa kana marka soo laga shaqeeyay qaabkan ugu soo shaqeynaysaa marka number of loops ama number of times malahan laba waxa ku dhufanaysaa lengthski oo 1.5 ka maadaama uu yahay first harmonic and fundamental harmonic jawaab saxda marka waxay noqonaysaa 3 meter per second ay ku soo baxayso marka warqadaha imtixaanka aad ku soo laabanaysaa jawaab saxda marka waxay noqonaysaa 3 meter per second oo C su'aasha toddobaad waxay u dhaceysay
if the object haddii walax is placed la dhigo at a distance masaafo 20 meter per second walax ayaa waxaa la dhigay meel u jirta 20 centimeter walax u jirta ayaa la dhigay in front of plane mirror muraayadan ay tahay muraayad plane mirror ah ama muraayad salax leh the distance masaafada between u dhaxeeya the object walaxdii la dhigay 20 centimeter ka hor and the image iyo humaaga samaysmay waxay noqonaysaa a ma 60 centimeter b 20 centimeter may isku jiraan c 30 centimeter ama d 40 centimeter marka chapter reflection of light waxaan ku soo baranay ama aan ku soo qaadanay muraayada mar haday tahay plane mirror hadii object horteeda la dhigo inta distance ay u jirto muraayada in leeg ayuu image kana ayuu u jirayaa marka adiga waxa lagu sii objectigani muraayada waxa u jira 20 oo centimeter waa from the plane mirror waa objectiga inta u jiro muraayada 20 kaas in leeg ayuu u jirayaa isla image ka uu sameysmaayo 20 plus waxaad ku dareysaa 20 jawaab saxda marka waxay noqonaysaa 40 cm kaas oo u dhiganta oo waa d jawaabtaada waxay noqonaysaa d oo 40 cm marka hadii muraayad plane mirror ah la hordhigo objectigaas distance uu u jiro in leeg ayuu wuxuu u jirayaa image ka haddaba hadii lagu dhaho what's the distance between waa maxay masaafada u dhaxaysa objective image waxay noqonayaan image ida objective inta uu jiro muraayada oo ah 20 cm ayaad waxaad ku dareysaa inta image ka uu jirayo asna ah 20 kilo centimeter marka waxay noqonaysaa 40 cm ay isku jiraan objectiga iyo image ka sameysmay marka jawaab saxda waxay noqonaysaa d su'aasha sideedaad ee su'aalaheena multiple choice ka ee goobgelida ama dooro jawaab saxda waxay u dhacaysay if hadii a pendulum column saacad walhada is taken la qaado a mountain top buur sare in this period kalka will be wuxuu noqonayaa kalka wuxuu noqonayaa increase macna ma kordha ma b decrease mu noqonayaa hoos u dhac miya ku imaanaya c unchanged mu noqonayaa oo mid aan isbedelaynin iyo d oo squared oo mid square ayuu noqonayaa marka jawaab saxda ah waxay noqonaysaa increase oo a wuu kordhaya sababtan waxay tahay anaga hore waxaan usoo baranay hadaa xasuustiin period of pendulum waxaa lagu helayay period of pendulum waxaa lagu helaa 2 by radical l loo qeybshay g ama gravitational lagu helaa marka maadaama walaxdii oo from the earth maadaama dhulka laga qaaday ama mountain top uu socdo gravitation wuxuu noqonayaa degrees macnaheedu maxay tahay kulama shayga dhulka uu sare ugu kaco gravitation wuxuu noqonayaa degrees marka period marka wuxuu vice versa ku noqonayaa gravitation ka maadaama gravitation ku noqdo degrees period wuxuu noqonayaa increase ayuu noqonayaa jawaab saxda marka waa a su'aasha sagaalaad waxay u dhacaysay the measure cabirka of rigidity ama stiffness of spring ee moolo stiffness marka waxaa loola jeedaa stiffness marka ama rigidity waxaa loola jeedaa waa is the force waa xooga loo baahan yahay to stretch in lagu kala jiido or ama compress ama in la isku keeno spring moolo ayaa waxaa loo yaqaanaa stiffness ayaa loo yaqaanaa marka xooga moolada lagu kala jiidayo ama la isku keenayo waxaa loo yaqaanaa a force constant miya b elastic limit miya c stress miya d strain miya jawaab saxda marka waxay noqonaysaa force constant ama waxa loo yaqaano spring constant waa a spring constant iyo force constant labadooda waa isku mid sababtoo definition muxuu ahaa spring constant and force constant muxuu ahaa is the measure stiffness of the spring waa xooga u baahan yahay moole in lagu kala celiyo ama la isku keeno ayaa waxaa loo yaqaanaa force constant ayaa loo yaqaanaa ama spring constant su'aasha 10aad ee imtixaanka waxay u dhacaysay tree gate ayaa isplaced waxaa la dhigay 15 cm meer 15 cm u jira from a convergent mirror muraayadna ay tahay muraayad loo yaqaano ururiso ama convergent mirror ama magac kale loo yaqaano ah concave mirror of radius of curvature hadii gacanka xoodnaanta uu yahay 20 cm the distance of the image masaafada uu humaaga ama image ka uu jiro objectiga waxaa lagu dhahay a waa 60 cm b waa 6 cm c waa 15 cm d na waa 30 cm su'aashan oo kale marka waxay u baahan tahay inaad soo calculation gareyso ama aad soo xisaabiso
waxaa soo raadinaynaa marka waxa loo yaqaan iyo waxaana la diray waxay tahay waa position of image ama image distance. Image distance waxaa lagu heli jiray chapterkii reflection of light-ka mirror formula. Image distance waxaa lagu heli jiray objective distance ayaad waxaad ku dhufanaysaa focal length, haddana waxaad u qaybinaysaa objective distance-gii oo haddana laga jiray isla focal length-kii oo haddana la kala jiray. Objective distance-gii oo 15 cm waxaa ku dhufanaysaa focal length, waxaad u qaybinaysaa isla objective-gii oo ahaa 15 cm focal length-ka. markaani focal length laguma siinin, laakiin focal length bedelkiisa waxaa lagu siiyey radius. mar walba waxaa isku hubisaa ardayow haddii su-aasha si lagu weydiinaya iska fiirinaysaa. hadda marka muraayada anaga halkaa nala diray ama nala siiyey waxay tahay waa converging mirror ama waxaa kaloo loo yaqaanaa concave mirror. mar hadday muraayada concave mirror-ta focal length ama radius-ka wuxuu noqonayaa positive ama plus ayuu noqonayaa. marka haddii meeshaas converging mirror lagu dhaho diverging mirror ama convex mirror hadday tahay radius-kaasi 20 cm wuxuu noqonayaa -20 cm ama focal length duuyana wuxuu noqonayaa -20 cm. marka maanta waxaan la siiyay converging mirror ama waxa loo yaqaan concave mirror. marka radius wuxuu noqonayaa plus oo 20 cm ana la siiyay iyo object distance oo 15 cm. marka qaacidada marka u fiirsato waxaa naga maqan focal length-ka. focal length-ka marka soo raadinaysa ardayow intaadan degdegin koor waa inaad ogaataa waxaad haysto iyo wixii ka maqan. focal length marka guud ahaan waxaa lagu helaa radius ayaad waxa u qaybinaysaa laba qaacidadaas isticmaalaysaa saad ku soo raadis focal length-ka. focal length-ka mar walba dherer kulmiska waxaa lagu helaa gacanka xoodnaanta oo laba loo qaybiyay ayaa lagu helaa. marka 20 cm laba u qayb marka waxay noqonaysaa 10 cm. focal length-ka wuxuu noqonayaa 10 cm. marka 15 dil u dhif 10 cm waxay noqonaysaa 150 cm square. isla labadoodan kala jaraynaa 15 iyo objective waxaan ka jaraynaa 10 oo focal length inoo soo baxay waxay noqonaysaa 5 cm. marka 150 hadii 5 loo qaybiyo waxay noo soo baxayso 30 cm. marka image distance and position of image wuxuu noqonayaa 30 cm taasoo macnaheedu uu yahay waa D jawaabta saxda waana 30 cm. su-aasha 11aad to detect si loo ogaado ama si loo baaro an original diamond original ah from fake diamond iyo diamond oo fake ah ama been ah we use waxaan isticmaalaynaa. marka waxaan haysanaa diamondka hadduu yahay original ama hadduu yahay fake diamond ama diamond been ah ama mid aan jirin maxaa lagu ogaadaa? waxaa lagu ogaadaa marka A waxaa lagu sii waa infrared light way, number B waxaa lagu sii ultraviolet light, number C waxaa lagu sii green light, number D na waxaa lagu sii emitting light. jawaab saxda ardayga waxay noqonaysaa waa B oo ah ultraviolet. sababta ultraviolet light-ka markaad u fiirsato marka waxa loo yaqaan electromagnetic waveska ama electromagnetic spectrum-ka marka la daraaseynayo waxyaabaha loo isticmaalo monitoring ama dabagalka loo isticmaalo waxaa loo yaqaanaa ultraviolet light ayaa loo yaqaanaa. marka si diamond-kana inuu yahay original inuu yahay fake waxaa la isticmaalaa waxa loo yaqaanaa ultraviolet light ayaa loo isticmaalaa. jawaab saxda marka waxay noqonaysaa B. su-aasha 12aad imtixaanka waxay u dhaceysay in order si to find loo helo the direction jihada of inducing current dabka soo baxay we use waxaan isticmaalaynaa A Faraday's law, B Charles law, C Lenz's law, D Ampere's law. jawaab saxda marka maxay noqonaysaa? jawaabta saxda waxay noqonaysaa waa C oo ah Lenz's law ayay noqonaysaa. sababtoo chapter-ka markaad u fiirsato oo ahaa electromagnetic induction-ka waxaa lagu bartaa wax loo yaqaan Faraday's law iyo Lenz's law. Faraday's law marka wuxuu ahaa waa how to get electricity ama inducing current si dabka loo soo saaro. dabka uu soo saaro marka Faraday's law-ga direction-kiisa ama jihadiisa waxaa go'aamiya wax loo yaqaan xeerka ah xeerka Lenz ayaa go'aamiya. marka jawaab saxda si loo helo direction jihada inducing current dabkan saaqmay ama soo baxay direction-kiisa si loo helo waxaa la isticmaalayaa jawaab saxda waxay noqonaysaa C oo ah Lenz's law. su-aasha 13aad waxay u dhaceysay the maximum voltage kayd faraqa ugu badan in an AC circuit ee mareeg ama maayad AC ama alternating current koronto oo talentaali ah is waa 35 volt. waxaa lagu sii electric waxa loo yaqaan voltage oo 35 volt and this angle iyo xagal waxaa lagu sii 45 degree. the instantaneous voltage ka markuu muxuu noqonayaa? instantaneous voltage ka hadaa xasuustin arday waxaa lagu heli jiray
waxa loo yaqaano maximum fault ama big fault oo lagu dhuftay marka la rabo in maximum voltage oo lagu dhuftay sin theta markasta xagash lagu siiyo markas meeshan waxaa haysanaa afar su'aalood waxaa lagu dhahay waa conton volt ama 50 voltage b waxaa lagu siiyey 24.7 volt c waxaa lagu siiyey 17.5 volt iyo d waxaa lagu siiyey 25.8 volt marka jawaab sax ma noqonaysaa intaadan jawaabta aadan goobi gelinin marka hore waa inaad isticmaashaa qaacidada lagu helo instantaneous voltage arday oo guud ahaan waxaa lagu helaa instantaneous voltage waxaa lagu helaa maximum volt ama big voltage oo lagu dhuftay sin theta marka big volt ama waxa loo yaqaano maximum volt waxaa nala siiyey 35 volt waxaan ku dhafanaynaa waxa loo yaqaano angalka xagasha nala siiyey oo 45 degree ayaan ku dhufanaynaa marka sin 45 degree marka meeqa waaye marka xagashaas soo convert gareynaysa marka soo bedesho oo aan dhahday sin 45 degree waxa ku soo baxayso tirada ku soo baxdo ayaad waxaad ku dhufanaysaa 35 volt answerka marka wuxuu noqonayaa 24.7 volt marka jawaabta saxda ah waxay noqonaysaa waa b taasoo u dhiganta 24.7 volt waxaa leedahay sin 45 degree sin 45 degree aad qoranaysaa lagu dhuftay aad leedahay 35 volt qaacidada ayaad isticmaalaysaa marka meeshan waa 45 degree waaye jawaabta marka waxay noqonaysaa waa b oo 24.7 su'aasha 14aad ee imtixaanka waxay u dhaceysay blue light ilays blue ayaa haasi frequency wuxuu leeyahay rakaad kaasoo gaaraya 7.7 lagu dhuftay 10 ku jibaaran 14 hertz lagu siiyay frequency waan haysanaa the energy of this photon energy ama tabarta la isticmaalayo waxay noqonaysaa use adoo isticmaalayo waxaa u qaadataa Planck's constant waxaa u qaadataa 6.63 lagu dhuftay 10 ku jibaaran -34 joule per second marka afar jawaab lagu siiyay waxaa lagu dhahay waa 50.8 lagu dhuftay 10 ku jibaaran -21 joule b waxaa lagu siiyay 8.6 lagu dhuftay 10 ku jibaaran -49 joule iyo c oo ah 1.17 lagu dhuftay 10 ku jibaaran 48 joule iyo waxaan haysanaa 5.1 times 10 power -19 joule marka waxaa isticmaalaynaa qaacidada oo ahay uu soo saaray ninka lagu magacaabo energy of Planck's constant waxaa lagu helaa energy marka energy lagu daro waxaa isticmaalaysaa Planck's constant waxaa ku dhufanaysaa frequency Planck's constant marka mar walba waa constant hadaan lagu siirin intaas ay u qaadanaysaa waa 6.63 lagu dhuftay 10 lagu jibaaran -34 ama 34 ayaad waxaad ku dhufanaysaa 7.7 lagu dhuftay 10 ku jibaaran -14 hertz answerka waxaa ku soo baxaysa markaad scientific aad geliso 5.1 times 10 power -19 ayaa ku soo baxayso marka jawaab saxda waxay noqonaysaa waa d ayaan noqonaysaa jawaab saxda marka waa d marka ardayga markii waxyaabo calculation oo kale sidaan aad aragto ha degdegin waxaad isticmaashaa qaacidooyinkii aad soo baratay isticmaal kadibna automatically jawaabta markay ku soo baxdo inta halkaan la imaado answerskaaga kadib jawaabtu meesha ku qoran in tan isku fiiri mid isku saxanaad gooba gelinaysaa su'aasha 15aad if a dk constant ana la siiyay of radioactive sample oo matatac ayaa la siiyay oo ah 1.72 times 10 power -4 it is half life waxaan la rabaa inaan soo raadino half life-ka half life marka maxaa lagu helaa half life-ka waxaa lagu heli jiray adaa xasuustiin half life waxaa lagu helaa eber dhibic 693 constant ayaad waxaad u qaybanaysaa abba wavelength-ka ama waxa loo yaqaan dk constant oo ah 1.72 times 10 power -4 kadibna answerka ku soo baxo ayaad dooranaysaa waa kana marka maxaa sameynaysaa half life waxaan ku helaynaa eber dhibic 693 ayaan waxaan u qaybinaynaa 1.72 times 10 power -4 waxay noo soo baxayso 4,029 second jawaab saxda marka waxay noqonaysaa waa d taasoo u dhiganta 4,029 second ayuu noqonayaa half life-ka cimri barka uu ku mataataxo haddii lagu siiyo sambal ah 1.72 times 10 power -4 su'aasha 16aad waxay noqonaysaa an element curyahani oo b
ayaa the number of neutron numberkiis wuxuu yahay lagu dhahay A waa 54, B waa 141, C waa 87, D waa 195. marka afartan hadba kee saxan intaadan degdegin su'aasha jawaabteedu marka ugu horeeyo waa inuu ardayga yaqaanaa ama uu xasuustaa haddii element lagu siiyo qaabkee lagu soo saaraa neutron numberka. chapterka nuclear physics-ka waxaa lagu bartaa haddaad la socotiin waxaa lagu bartaa mass number iyo atomic number. mar alaala mar kasta tirada kore waxaa loo yaqaanaa mass number, tirada hoosena waxaa loo yaqaanaa atomic number. marka anaga u fiirso waxaan la siiyay waxaan haysanaa mass number oo 141 iyo waxaan haysanaa atomic number oo 54. marka mass numberka tirada kore mar alaala mar walba waxay u taagan tahay protons plus neutrons waa proton plus neutron. 141 waxay u taagan tahay waa proton iyo neutron la isku daray waa mass numberka. atomic numberkan waxaa lagu helaa ama waxay u taagan tahay waa number of protons inta proton uu ka kooban yahay elementigaasi. marka waxaad sameynaysaa mass numberka waxaa ka jiraysa atomic numberka waxaad si aad u hesho neutron numberka. marka mass numberka waa 141 kaasoo micnaheedu uu yahay waa proton iyo neutron la isku daray. atomic numberkan waa 54. marka 141 waxaa ka jiraysa 54. jawaab saxda waxay noqonaysaa waa C taasoo micnaheedu uu yahay 87. marka elementigani halkaas noo yaala wuxuu ka kooban yahay 87 neutron ayuu ka kooban yahay. marka labadaas tiro ayaad kala jaraysaa. su'aasha 17aad ee imtixaanka waxay u dhaceysay in forward biasing the potential barrier is waxaa lagu dhahay forward biasing-ka asaga muxuu u taagan yahay. forward biasing wuxuu u taagan yahay waa casharkii ahay b injection-ka ayaa lagu qaataa. b injection-ka marka wuxuu ku sameysmaa waa b type iyo n type oo la isku daray. waa b type iyo n type oo la isku daray waxaa loo yaqaanaa b injection. b injection marka laba qayb uu ka kooban yahay waxa uu ka kooban yahay forward biasing iyo wuxuu ka kooban yahay reverse biasing. marka forward biasing markuu yahay potentialkiis maxaa ku dhacayo potentialkiis waxaa ku dhacayo waxa loo yaqaan degrees ama wuxuu noqonayaa waxa loo yaqaan reduced. marka jawaab saxda waa B oo u dhiganta marka forwardka markuu la daraaseeyo oo wixii positive la isku aadiyo wixii negative la isku aadiyo oo b injection-ka waxaa dhacayo wax loo yaqaano current flows. meesha waxaa kasoo baxaya dabka uu soconaya. marka hadduu currentiga uu socdo ama current flows uu noqdo waa forward biasing. marka forward biasing markuu noqdo oo current flows uu dhaco caabiga wuxuu noqonayaa waxa loo yaqaano low resistance. sidaas daraadeed marka forward biasing hadduu yahay potential wuxuu noqonayaa reduced ama waxa loo yaqaano decreased ayuu noqonayaa. jawaab saxda marka waa B. su'aasha 18aad waxay noqonaysaa 4 Henry inductor waxa loo yaqaano langas dhir ayaa wuxuu yahay inductor oo 4 Henry waaye 2 potential difference-giisna ama uu yahay voltage uu yahay 120 volt and 60 hertz frequency-giisna uu yahay 60 hertz. the inductive reactant wuxuu noqonayaa waxaa lagu siiyey 4 jawaab. A waxaa lagu siiyey waa 754 ohm, B waxaa lagu siiyey 767 ohm, C waxaa lagu siiyey 574 ohm, D na waxaa lagu siiyey 1508 ohm. jawaab saxda marka waxay noqonaysaa intaadan goobada aadan gelinin circle-ka marka ugu horeeya waa inaad taqaanaa maxaa lagu helaa inductive reactant. arday haddaad xasuustiin waxaa lagu helaa 2 by inductive reactant-ga waxaa lagu helaa 2 by lagu dhuftay frequency oo lagu dhuftay L ama inductor qaacidadaas ay isticmaalaysaa. waa kan asagoo laga shaqeeyay marka labadan soo qaadanaysaa qaacidadan isticmaal bayda markasta waxaa loo qaataa 3.14 waxaad ku dhufanaysaa hertz oo 600 hertz waxaad ku dhufanaysaa lengaska ama inductorka oo ah 4 jawaab waxaa ku soo baxaysa marka 1508 ohm. halbeeg inductor reactantina waxaa loo yaqaanaa ohm. jawaab sax marka waxay noqonaysaa waa D kaasoo u dhiganta 1508 ohm. su'aasha 19aad su'aalihii goobgelida imtixaanka sanada 2021 wuxuu ahaa 60 cm long fiilo dhererkeedu uu yahay 60 cm ayaa waxay qaadataa ama waxay ku shaqeysaa waxa loo yaqaan 40 meter per second speed xawaare ah and of strength magnetic field waxaa lagu siiyey magnetic field oo ah 3 Tesla ama 3 Tesla. the EMF induced dabka saaqida halkaas ka soo baxaayo waxay noqonaysaa A
waa eber dhibic 72 volti, b waa 7.2 volti, c 720 volti, d na waxay noqonaysaa 72 volti. marka EMF maxaa lagu helaa marka EMF ka electromagnetic induction wuxuu ahaa EMF ama E waxaa lagu helaa electromotive force waxaa lagu helaa magnetic field oo lagu dhuftay length oo lagu dhuftay velocity saddexdoo isku dhufanaysaa centimeter kan waa soo bedelaysaa meter ka soo dhigo 0.6 ku soo baxayso waxaad ku dhufanaysaa 40 waxaa ku soo dhufanaysaa 3 jawaabta saxda marka waxay noqonaysaa waa 70 waa kan asagoo laga soo shaqeeyay qaabkaas uu soo shaqeynaysa answerka waxay noqonaysaa 72 volti jawaabta saxda marka waa D kaasoo micnaheedu uu yahay 72 volti ayuu noqonayaa. su-aasha labaatanaad ee su'aalihii multiple choice-ka oo su-aasha u dambeysay waxay ahayd a night vision device aaladaha ama qalabyada loo isticmaalo aragga habeenkii can see it lagu arko in the darkness waxyaaba mugdiga by receiving si loo helo a kind of radiation ka noocaas waxaa loo yaqaanaa ultraviolet radiation miya, b infrared radiation miya, c cosmic radiation miya, d gamma rays miya. jawaabta saxda waxay noqonaysaa waa b oo ah infrared radiation. sababta infrared radiation waxaa loo isticmaalaa sida remote controlka oo kale, temperatureka loo isticmaalaa ama thermometerka, heating effect loo isticmaalaa ama night vision camera ama night vision device ama night vision camera wax loo yaqaano si habeenkii si aad u isticmaasho oo sawir aad habeenkii aad u qaado waxaa la isticmaalaa wax loo yaqaano oo soo daayaa wax loo yaqaan infrared radiation shucaac infrared ayuu soo daayaa. intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa su-aalihii 20 xab ahaa ee multiple choice-ka goobagelida ee imtixaankii wasaaradda oo ay sanadkani ay qaaday. insha Allah waxaan rajeynayaa inaad wax badan aad ka faa'iideen oo aadna ku baraadkeen doontaan dowlad karaal noqdo. intaan qaybta xigta aan ka kulmi doono su'aalihii tooska ama straightforward question-ka waxaa idinkaga tagayaa anigoo ustaadka Gaarane Xasan Gaarane sidaas iyo amaano Allah.